habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah iyadoo kumanaan Rohingya ah ay ku nool yihiin xarumo ku meel gaar ah ayaa waxa socda wada hadallo lala yeelanayo dawladda Myanmar si looga heshiiyo mustaqbalkooda waxa socda hawlo lagu nadiifinayo saliid ku daadatay bariga badda Shiinaha waxaana loo maleynayaa inay gaartay in ka badan 120 kiiloomitir oo laba-laaban guryo cusub oo loogu talagalay dadka dakhligoodu uu hooseeyo oo uu soo saaray madaxweyne Mnangagwa ayaa rajo geliyay dadka reer Zimbabwe degmada Bazaar ee Bangladesh oo dhowr kiiloomitir u jirta xuduudda galbeedka Myanmar waxay guryo u noqotay 100,000 oo ka tirsan qaxootiga muslimiinta Rohingya kuwaasi oo ka soo qaxay rabshadaha Myanmar tirada guud ee qaxootiga Rohingya ee ka soo tallaabay soodinta Bangladesh tan iyo bishii August waxa ay ka badan tahay 860,000 hadda waxa buux dhaafay xerada qaxootiga waxaana ka dilaacay cudurka la yiraahdo gowracatada Qaalib Xasan Baaruud ayaana ka waramaya warbixintan yaasiin waxa uu la leeyahay cudurka gowracatada waa cudur bakteeriya ah oo dilaa ah awdana neefqaadayaasha sanbabada sidoo kale waa cudur si fudud u faafa Dr. Hala shaqadiisu waa ka hortagga iyo joojinta faafitaanka cudurkan waxa uu madax u yahay koox shaqaale ah shaqadooduna waxay bilaabataa marka kiisaska gowracatada loo soo sheego waxay ku dhex wareegaan xeradan qaxootiga oo haatan noqotay ta adduunka ugu weyn si ay u baadi goobaan dadka cudurku soo hayo shaqaalahan khaaska ahi waxay maalin kasta diiwaan geliyaan ilaa 10 kiis waana hawl u baahan socod badan baaritaanku waxa uu ka bilaabmay guriga Yaasiin Riita iyo Rayba waxay u baahan yihiin daryeel taabashadu waa halis xitaa haddii uu qofku ka tallaalan yahay cudurku waxa uu ku dhacay xubno ka tirsan kooxda caafimaadka waxayna noo sharaxeen khatarta gowracatada iyaga oo qoyskan siinaya antibiotic si loo joojiyo cudurka qof kasta oo xidhiidh dhow la yeesho bukaanka muddo saacada ka badan waxa uu u baahan yahay in la daaweeyo halistu inteebay laag tahay marka aynu dibadda fadhino ma ahan annaga waayo dhammaanteen waana laga tallaalay laakiin khatar ayay ku tahay bulshada Rohingya oo aan horay looga tallaalin hadda maxaa dhacaya ma xakamaysaan waxaynu rajaynaynaa in aan ku xakamayno tallaal iyo daawooyinka ka hortagga cudurka hadda waxay u muuqataa in cudurkan oo waddamada inta badan laga tirtiray uu yahay mid la xakameeyey hase yeeshee weli lama dabargoyn iyadoo ay in ka badan 800,000 oo qof ay ka buuxaan xeradan qaxootiga cudurkuna ma aha mid ay dhakhaatiirtu dhayalsanayso maraakiibta Shiinaha ayaa dadaal ugu jira sidii ay u nadiifin lahaayeen saliidda ku daadatay badda bari ee Shiinaha kadib markii uu halkaasi ku degay markab ay Iran leedahay dhul baaxadiisu ay gaarayso 120 kiiloomitir ayay saliidu gaartay warbaahinta Shiinahana waxay sheegaysaa in 2 markab oo kiimika ah in ay biyaha rushaynayaan si ay saliidda biyaha uga saaraan Cabdiraxmaan Bidhaan Xaaji Daahir ayaana ka waramaya tani waxay ahayd gabagabadii iyo holcii u dambeeyay saanji badda hoosteeda galisay qarax weyn ayaa markabka ka dhacay dabkii ka kacayna waa uu burburiyey gebi ahaanba kiiloomitiro in ka badan ayaa laga arkayay qiiqa kooxaha gurmadka ee Shiinaha ayaa maalmo ku hawlanaa sidii ay dabka u bakhtiin lahaayeen laakiin batroolkii iyo gaastii halkaasi ka soo fakaday ayaa khatar ahaa oo aan loo dhowaan karaynin sabtidii waxaa u suurta gashay inay markabka koraan oo ay 2 meeyda ka soo dulqaadaan wixii ka hadhay taangarkan waxa uu quusay iminka 100 mitir badda hoosteeda 29 badmaax oo lala'aana waxaa loo malaynayaa inay dhinteen dhammaan dadka saaraa waxay ahaayeen Iiraaniyiin dawladda Iiraan ayaa ku dhawaaqday maalin baroordiiqa oo maanta ahayd si loo xuso waxa ku tilmaameen badmaaxiintii geesiyaasha ahaa dhanka kalena badda bariga Shiinaha waxaa loo jeestay in dabeecadda laga badbaadiyo khatarta la soo daristay
120 kilomitir oo isku wareega ayaa saliiddu quban tahay laga samaynayo shidaalka. khabiirkan ayaa ka digaya saamaynta ay ku yeelan karto deegaanka iyo noolaha. inkastoo aanu xeebta ku soo caariyin haddana halkaa nolol baa ka jirta. waxaa ka jira bartamaha badda bariga Shiinaha nidaam dabiiciya oo nugul, waana meel laga kalluumaysto. waxaana ka kalluumaysta Jabaan, Shiinaha iyo Kuuriya. sidaa daraaddeed waa inay dhaqso ula yimaadaan qalabka jillaabashada haddii aysan horay u haysan, maxaa yeelay alaabtani waa sun. waxaa laga baqayaa inay tahay saliiddii ugu badnayd ee badda ku daadata muddo laga joogo 25 sannadood. saliiddan culus iyo shidaalkani waxay dhaawac weyn ku samayn karaan noolaha, laakiin sunta cufnaanteeda ayaa iyaduna dhibaatada weynayn karta. wixii ka hadhay xamuulkii tangarkan oo ahaa 100 milyan oo foosto oo shidaal ah ayaa badda quusay. way adag tahay in la hakiyo ama la helaba. faahfaahin dheeraada ku saabsan warbixintan iyo kuwo kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka gelaya moobilkaaga. bal markana aynu eegno qodobo kale ku jira wararka maanta. Itoobiya ayaa ka hartay eedaha loo haystay hogaamiyaha mucaaradka weyn kaasi oo xirnaa in ka badan sanad. sideynta madaxa golaha federaalka Oromada Merara Gudina ayaa ahayd dalabkii ugu weynaa ee dibadbaxayaasha mucaaradka gobolka dalka ugu weyn ee Oromiya. xeer ilaaliyaha guud Gitajo Ambaye ayaa sheegay in la sii dayn doono maalmaha soo socda 500 oo isugu jira siyaasiyiin iyo dhaqdhaqaaqayaal. dowladda Tunisia ayaa ku dhawaaqday isbeddello bulsho iyadoo ka jawaabaysa dibadbaxyo maalmo socday oo looga horjeeday howlaha guntigiijiska. dibadbaxyo cusub ayaa dhacay Axaddii oo ahayd sanad guuradii 7aad markii la riday madaxweyne Zayn al-Caabidayn bin Cali. kulan degdeg ah oo dowladdu yeelatayna waxaa looga jawaabay dibadbaxyadaasi oo keenay in la xiro dad ka badan 800 oo ruux. madaxweyne Beej Qaid Essebsi ayaa booqday deegaanka dibadbaxa uu ka socday isaga oo sheegay inuu dareensan yahay dhibaatada dadka. dabaq ka mid ah suuqa ugu weyn badeecadaha Indonesia ee Jakarta ayaa soo dumay waxaana ku dhaawacmay in ka badan 70 ruux. booliska Jakartana waxay sheegeen in ay ahayd dumis ku timid cilad balse aysan ahayn mid qarax ku timid. shaqada suuqa ayaana dib u bilaabatay. saynisyahanada ayaa sheegaya in xaaladda loo yaqaano maskax caruureed ama ilowshaha ay la kulmaan haweenka badan xilliga uurka ay tahay wax jira. cilmi baaris lagu daabacay wargeyska caafimaad oo ka soo baxa Australia ayaa muujinaysa inay ka timid maskaxda bani'aadanka oo la qabsanaysa ka hor dhalmada. isbeddelkaasi ayaa ah mid aan joogto ahayn. godadka ka qodma wadooyinka ayaa ah dhibaatada ugu weyn ee baabuurta iyo rakaabka adduunka oo dhan. magaalada Nairobi dowladda hoose ayay rajadeedu ku xiran tahay farsamo cusub oo daqiiqado loogu hagaajinayo godadka wadooyinka ku yaala. Sohayba Maxamed Badqas ayaana ka waramaysa. duleedka Nairobi wadooyinka burbursan oo noocan oo kala ah ayaa ku badan. godadkan waxa ay tijaabo u yihiin adkaysiga gaariga iyo samarka darawalka. qaar ka mid ah dadka ayaa maalin waliba gala safar inta u dhaxaysa gurigooda iyo goobaha ay ka shaqeeyaan. milkiilayaasha gawaarida ayaa la daalaa dhaca ciladaha gawaarida ka soo gaara wadooyinkaasi. markii aad marto wadooyinka burbursan saamayn ayay ku yeelanaysaa mootadaada. sidaas daraaddeed mar walba waxaan taaganahay garaashka. xitaa dadka ka shaqaysta mootooyinka ayay ku adag tahay in ay faa'iido ka helaan. mashiintan xawaaraheedu sarreeyo ayaa ah teknolojiyad ku cusub suuqyada dalka Kenya. waa mid awood u leh in ay godadka ku hagaajiso muddo 2 daqiiqo ah. dowlad deegaanka Nairobi ayaa doonaysa in ay soo iibsato qalabkan si loo dardargeliyo dayactirka wadooyinka caasimadda. balse dadka dhaliila ayaa sheegaya iyadoo dhaqaale loo hayo haddana dadka in aysan ku qanacsanayn shaqooyinka dayactirka. haddii aad keento makiinad weli ma aadan xalinin dhibaatooyinka xagga maamulka ka jiray, sababtoo ah qalabka keligiis iskama shaqaysiinayo. sidaas darteed waxa ay magaalada u baahan tahay in laga hirgeliyo qalab tiknoolajiyad wanaagsan ah oo ku shaqeeya hab maamul oo heerkiisa sarreeyo. gaadiidleydan shaki kuma jiro in ay ka mahadcelinayaan haddii godadkani ay si dhaqso ah u dugmaan,
balse in waddooyinka ay ahaadaan kuwo wanaagsan waa guusha ugu dambaysa ee la tiigsanayo. markana wararka ciyaaraha Man United iyo Stoke ayaa caawa wada ciyaaraya iyadoo naadiga Stoke-na ay maanta u magacaabeen Paul Lambert maamulahooda cusub. Bournemouth waxay 2-1 shalay kaga adkaatay Arsenal, halka Manchester City laga adkaaday markii ugu horeysay xilli ciyaareedkan kadib markii Liverpool ay 4-3 kaga adkaatay. maamulaha City Pep Guardiola waxa uu sheegay in guuldarrada kooxdiisa ay cadaynayso in uusan tartan ka dhamaan. Ryan Giggsna waxaa loo magacaabay maamulaha cusub ee Wales heshiis 4 sano ah. Weeraryahankii hore ee Manchester United ayaa bedeli doona Chris Coleman oo bishii November aaday Sunderland. Giggs ayaa intii u dhaxaysay 1991 ilaa 2007 ku guuleystay 64 tartan isagoo dalkiisana kabtan u noqday. Manchester United ayuu 4 ciyaarood ku sima maamulo u ahaa dhamaadkii xilli ciyaareedkii 2013 ilaa 2014. ciyaaraha tenniskana Belinda Bencic ayaa tartanka 2017 kaga adkaatay Venus Williams wareegii ugu horeeyay ee Australia Open. dhinaca raggana ciyaartoyga numberka 1 Rafael Nadalna waxa uu xoog sheegtay Victor oo aanan ciyaarin ilaa iyo markii uu dhaawacmay jilibka bishii November waxa uu kaga badiyay 6-1. xilka qaadistii madaxweyne Robert Mugabe sanadkii tagay waxa ka abuurmay in rajada dadka reer Zimbabwe ah in dhaqaalaha hoose ee wadanka uu kor u kaco dawladda cusub ee madaxweyne Mnangagwa. qaybaha ay saameysay dhaqaalaha hooseeyana waxa kamid ah suuqa guryaha. dadka badankooda ma awoodin in nidaamka dhaqaale ee caadiga ah ay ka helaan ama Caaisha Afrax ayaana ka waramaysa. mustaqbalka Zimbabwe waxa dhagax dhigaya dhalinyaro dadaalaysa oo isugu jira gabdho iyo wiilalba. Madakaro State waxa ay ka mid tahay xarumaha waaweyn ee ka dhisa guryaha magaalada Harare. qaalaha dhismaha ayaa aad u mashquul ah maadaama waqtigii lagu dhamayn lahaa 76 guri uu soo abaarayo. inkastoo dad badan oo reer Zimbabwe ah ay ku rajawan yihiin inay iibsadaan hooy, bangiyada lacagaha deymiya ayaa doonaya inuu qofku haysto 25% qiimaha guriga idilkiis, balse iyagoo ka soo baxay shuruudahaas ayaa badankood dadka guryaha iibsada ay ku dhibaatoodaan sidii ay u gudi lahaayeen deynta ay hore u qaateen. 2015 dadka aanan deynta ku gudi karin waqtigeeda ayaa gaarayay 20%. hase ahaatee sanadkan la soo dhaafay ayaa waxay sheegtay wasaaradda dhaqaalaha inay tiradaasi hoos ugu soo dhacday 8%. xaafadan loo yaqaano Amalinda ayaa waxaa ka bilowday barnaamij oo ay dawladdu ku siinayso shaqaalaheeda iyo kuwa shirkadaha gaarka loo leeyahay guryo qiimo jaban. waxaannu la shaqaynaa shirkado muddo kooban nagu maalgashada dhaqaalahooda howlgabka si ay u taageeraan shaqaalahooda. sidaa daraaddeed annaguna marka aannu la macaamilayno shaqaalaha shirkadda kuma xidhno shuruudda dabaajiga. Grace Mafoke ninkeedu wuxuu u shaqeeyaa shirkad samaysa shamiindada. shirkadaasi oo ka tirsan mashruuca guryeynta qaranka. hadda waxa ay ku faraxsan yihiin inay yeesheen hooy ay iyagu leeyihiin. sanadkii tagay ayaa dawladda hoose ee magaalada Harare sheegtay inay isku dabaridayso mashruuc ay gelinayso $100 milyan si ay u dhisto guryo. tanina waa mid aad u farxad gelisay shirkadaha dhisa guryaha, balse hadduusan dhaqaaluhu soo kobcin mashruucyadan ma ahan kuwa hirgeli doonaan. markana waxaynu idin haynaa badmaax ka qaybgalayay tartanka badweynta Volvo kaasi oo nasiib wanaag badbaaday kadib markii kooxdiisa ay kana soo bixiyeen biyaha aadka u qabo ee uu ku dhacay badda Pacific ayuuna ku dhacay isagoo aanan xirnayn jaakadaha badbaadada. 7 daqiiqadood ayay qaadatay. kooxdiisa ayaa hoggaanka tartanka ku soo laabatay kadib dhacdadaasi. wararkan iyo kuwii ugu dambeeyayba waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan boggeena bbcsomali.com. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna caawa. waxaan idinkaga tegaynaa intaan kulmi doonno waxaan idin leenahay nabad gelyo.